بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داوديال meel kasta iyo meel walba oo adduunyadan dacaladeeda ama taafeheedaba ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan Higsi oo hadaan bid ka soo gudbino kalsan TV xaruntaan ku leenahay ku taala magaalada London daawadayaal soo bartay barnaamijka waxaan soo gaarsiisaa anoo ah Katun Musa Cabdullaahi barnaamijka Higsi waa barnaamij aad kolba wixii aan higsanayno kolba horumarka haddii miscanaanayno hadday dib u dhac tahay iyo hadday tahay in aynu isla markaana fikirkeena isu keenno oo aynu kolba horumarka aynu doonayno inaynu gaadhno fikirka aynu doonayno inaynu isdhaafsiisano ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan barnaamij u furan oo ay nagala qayb qaadan karto waana barnaamij aynu runtii u baahanahay way ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay higsi inay gaadho inay hore u socoto dib u dhac fara badan ayaa inagu yimaaday geeska Afrika oo dhan hadday tahay Soomaali deegaanka ay degto dhan dibdhicin aad iyo aad buu fara badan yahay marka barnaamijyada aynkan oo kala aad iyo aad baan u jecelahay in la badiyo aad iyo aad baan u jecelahay hamiga dadka in kor loogu qaado kor loo dhiso dadku inay arkaan horumar inay arkaan si ay yacni niyadiina iyo didiiladeena iyo niyadiiba ay u dhisanto isla markaana ay dadku isiraahdaan wanaag baa la gaadhay wanaag ku sii dar laakiin haddii xumaanun aynu mar walba horteena soo dhigno haddii aynu mar walba dagaal horteena soo dhigno haddii aynu mar walba wax la dhacay iyo wax la dumiyay aynu horteena soo dhigno dadkii niyad jab aad iyo aad far badan baa ku dhacaya ka bacdina si ay higsi ku gaaran wayba adkaanaysaa barnaamijkan marka wuxuu ka turjumayaa higsiga yacni ummadda Soomaaliyeed ayuu ka turjumayaa maanta waxaan inoo soo diyaariyay horena waxaan uga hadalnay magaalooyin fara badan yacni bilicda magaalooyinka horumarkay gaareen quruxdooda iyo dabadhici ku yimiba muqdisho waynu ka hadalnay hargeysa waynu ka hadalnay jigjiga waynu ka hadalnay maantana waxa aynu ka hadlaynaa magaalada Berbera taariikh aad iyo aad u dheer bay Berbera leedahay waxaan aad iyo aad u jecelahay in dadkii heer Berbera ama dadkii Berbera ku noolaa ama dadkii Berbera u dhashay inay caawa halkan iga daawanayaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan Berbera way taqaanaa Berbera taariikh aad iyo aad u dheer ayay leedahay Berberi taariikheedu aad iyo aad u far badan yahay waa magaalo xeebeed weeyaan saaw aragtaanba waa magaalo aad iyo aad u qurux badan xeebteedu waa xeeb aad iyo aad taariikh aad iyo aad u dheer leh wadanka Soomaaliya oo dhan ba Berberi waxa weeye waa meeshii ugu horeysay ee mataqaanaa taariikhdu ay ka bilowmatay waa aragtaan waa u jeedaan bilicdeeda quruxdeedu waa u jeedaan inkastoo aan jeclaa inta iyo in ka sii badan iyo in ka sii badanba Berberi in ay gaadho laakiin aad iyo aad baan ugu qanacsanahay aadna waxaan ugu faraxsanahay yacni muuqaalkan aan idin soo diyaariyay waa u jeedaan Berberi taariikh bay leedahay waa meeshii cilmi bowdari mataqaanaa uu ku lahaa muufada uu ku lahaa waa meesha cilmi bowdari uu jacaylku kaga dhacay waa taariikhda ummadda Soomaaliyeed qofkii ugu horeeyay ee jacaylku ku dhacay jacaylna u dhintay Berbera ayuu ka aasaasmay marka heesaha inta badan Soomaaliyeed marka la qaaday waa ku maqashaan deynay cilmi bowdari iyo jacaylkii cilmi helay badda waa aragtaa daawanaysan badda quruxda badan leh waxa ay ku taala magaalada Berbera ayay ku taala Berberi taariikh aad iyo aad u dheer bay leedahay bilicdeedana waa aragtaan inta iyo in ka sii badanna waxaan jecelnahay Berbera inay horumar inta ka far badan ay gaadho highway looga dhiso yacni dhirtii timirta ahayd quruxda badnayd badda ku xeernayd in aad iyo aad loogu dadaalo laga beero in mataqaanaa magaalada ay noqoto aad iyo aad u qurux badan oo hiigsanaysa magaalooyinka kale ee casriga ah ee dunidan aynu iminka joogno oo kala inkastoo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay muuqaalka iminka aan arko ee la soo duubay waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan runtii marka barnaamijkeena waxa aynu ku qaada dhigaynaa magaalada Berbera ayaynu ku qaada dhigaynaa Berbera ayaynu ka hadlaynaa qadadka telefoonka waa idin furi doonaa waxay la tahay dad aad iyo aad u fara badan oo mataqaanaa heer Berbera ama ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay aad iyo aad ugu farxi doonto muuqaalkan soo diyaariyay daawadayaal barnaamijka waxa ay gal qayb qaadan doona oo gadaal iga soo gali doona marti aan idin qarin doono magaciisa marka halka soo fadhiisan bay saarki doontaan Berbera tagay Berbera ku soo damaashaaday Berbera ku soo dabaashay roodi ka soo cunay cilmi bowdari father of waxa la yiraahdaa waa aabihii jacaylka sida kale marka loo dhigano waa father of love baa la yiraahdaa waa meeshii uu mataqaanaa cilmi uu roodida ku sameyn jiray markuu hodan jeclaaday waa u jeedaan quruxdeeda iyo mataqaanaa bilicdeeda waa u jeedaan waxaan aad iyo aad u jecelahay qof walba oo Soomaali inuu taariikhda booqdo inuu Berbera soo eego inuu Berbera soo arko
si ay taariikhdaada oo u gasho inaad yacni berberana aad saarto way in badan ayaad heesaha ku maqashay cilmi boodhari runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay daawasho wacan baan idin leeyahay dhammaantiinba ku raaxaysta magaalada berbera ku damaashaada shaayina ku caba ilaahay hanagu simo anaguna anagoo badda quruxda badan ee aragtaan ku dabaalanayna oo joogna meeshii cilmi bartii cilmi boodhari uu roodhida ku dubi jirayna runtii waa taariikh aad iyo aad u qurux badan waxayaan hadalka idinku daadin daawadayaal waxay ila tahay inaad ka boogteen muuqaalka quruxda badan ee idin soo diyaarinay martiba caawa halkan ila fadhida waxaan aad iyo aad idinku soo dhaweynayaa martideeda qaaliga waan idinku soo dhaweynayaa dhawaana ka timi magaalada berbera aad iyo aad ayaan runtii idinku soo dhaweynayaa muuqaalka ayaan sii yar jeclaysanay inaan sii daawano anse ahaatee dhinacaygan waxaa fadhiya cabdi good abees baa fadhiya cabdi good idinkuma cusba wejigiisa idinkuma cusba waa soo garanaysaan cabdi good aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa cabdi good aad iyo aad ayuu wuxuu ugu xildheerya magaalada berbera hadiyadna waxaan uga dhigayaa caawa magaalada berbera ayaan uga dhigayaa cabdi good dhawaan waxaa tagtay berbera tagtay somaliland baa tagtay laakiin magaalada berbera ayaa tagtay waad kusoo damaashaada waad kusoo dabaalatay oo de haddaana dabaalanba madaa berbera tegay maad iska dhex marmarta xagga sokata cagaha gelisa dabaalun dheho dabaalun naga dhaho cabdi good markaas aad baan kusoo dhaweynayaa aad baan kugu mahad celinayaa inaad barnaamijkan igala qayb qaadatay berbera صح dhawaan baad ka timi wadankii ka timi waxaan joogaa wax yar baan ka joogaa khaasatan waxaan anigu doonayaa caawa inaan focus ka saaro barnaamijkan uu mataqaanaa uu ku saleysan yahay magaalada berbera nacam adiguna de magaalada berbera kama dheera taariikhdeedana si fiican baad u qaada dhigtay baalka soo ilaawan doonay inaan laga xidhay taariikhdeedana si fiican ayaad u garanaysaa marka hadda horta waxaan ku leeyahay barnaamijka ku soo dhawo aad baan horta barnaamijka ku dhawahay sax حد وانس أمودها كم يقول قد بيسيد أو المجال بربرة كالقيب قادة تاريخ حد ينقطه واحد كسر عرقتي كلا يلا قيب قادة هورتا مجال بربرة لا يلاحظه لقوا كل يلا حيتون سنوات بتاريخ ثم رئيسه صح كو مركه هيد مجا كلا لونشري ملايا لونشري ملايا سيلا إيفلت بلونشري يلا ملايا لونشري هاي ونين ماشى مرة والله جرنا يني إيجيبسيان يجريج بدوها buugu ka qoray baa waxa ku taalo in malaaya loo jiray okay oo dadkii hore markii berga horta joog jiray ma waxay ahaayeen turki baa barbar bay ahaayeen barbar ka la yiraahdo ayaa ku noolaa aagaas 2016 sanadood ka hor hay marka magaalada horta malaaya loo jiray waxay ahayd Asian port dekadaha adduunka imika Soomaal maqal adduunyada Mareykanka iyo Yurub iyo dekadaheeda sax bay jirin sax ila jirtay barbar jirtay ruudkii ugu horeeyay ama dariiqii ugu horeeyay ee bay'amish adduunka loo furay badmara يا سومري بريجي هردي يجيب تمر كتب حاجة دوش يودي محمر يجري سوري حاجة سويندي كيجي يجري مركب برعد قاعد دريق بتشوقي كايدون لقى فايدة سنية دبيله منسونك أيها قد كان لفري مركب نيكن يسوق وسول لقى يتابع مشتركوا ويجا يموتوا لقينا مجال والبوستاجي مركب ملاي أيوب بالبريجي ولا يجري ملاي ده الباربر لا يرضى كل نوع ما قاعد سومري ده واستد بقول سنوات هذا بقول كنت سنوات بموقع بحي لكن ده كنت تذكيهم ويا أبيس لحاله هي قلت مدة صح دول كنا وادولكي مركب ومجاله رنتي Asian ports waxay u ka wada waxay ahayd dekadihii ugu horeeyay adduunka qadiimiga ahaa oo marka laga dhoofin jiray badeecadii adduunka marka halka ay mari jirtay sax run ahaantii ilaa waxa de berigaas oo aan ku ahayd magaalada koobabka adduunyada weedo koob wax lagu cabin baday halka laga cabo koobkan shaah lagu cabo Roman Empire kii waxa samada halka lagu geyn jiray كورك كان برجع ولا حليت لنا بلا جماعة هاي دام قروح دام روب كمان على عدة إسكي علني أنا ده لما كان روماني بايو كان حليت لنا واحد اللي جوس مين شري وبرت اللي جوس مين شري مركا واحد شري ده ما كان لنجوري ولكن سومالو ده أفر ده كي برجع هالك هاد جنا أفر بيا هاي مركا واحد شري ده يعني سومالي تومالي باشمالي بيمال بيكلا هاي دتكو سومالي هانتين ها مركا ده سومال كو حول نقطة بيمال كنا بيرلي ده تومال كنا ونك السنة عدة وضع تكنولوجيا دي برجع جرتي باشمال كنا ونمك دوبل السنين جري
berbere waxay caan ku ahayd baajimaalka dhoobada adduunka laga sameeyo ayaa halkaa laga baayac mushtar gareyn jiray magaalo weligeedba baayac mushtar saliidaha ugu qaalisan ee meesha laga dhoofiyeen waxaa ka mid ahaa saliidda kulanka ee la yidhahdo aragonka imika adduunka ugu qaalisan halkaasaa laga dhoofin jiray iyada marka berbera laga beeri jiray aageeda waa kan geedkuba ninka ku badan yahay kulanka la yidhahdaa waxaa caan ku tahayba markaad xeebta daragoodla maraysa xaggana geello kor maraysa dee kulan baad usoo gelaysaa sax oo dema ilaa hudisa dee dhulka gubanka oo dhan buu ka baxaya sax markaa saliidda adduunka imika ugu qaalisanna waa iyada marka halkaasaa laga dhoofin jiray waa magaalo taariikh aad intan aynu soo gaadhnay dee magaaladani waa magaaladii ugu horreysay dee markii gumaystuhiinu min la yidhi waar balintaad ku yaro noqoto badda gudaheeda wax ka saxeexo dee taariikho dadku ay wada garanayaan bay leedahay waa taariikhdii lalahaa badda dhexdeeda lagaga saxeexay ha inaanay carruur ku dhalin aduu qodobo badan malaa inaan calankooda dhulka laga taagin dee nimankii meeshaa joogay baa niman waxgarada ahaa soomaaliyeed dee qabiil walba lahaa ayaa dee halkaa kaga saxeexay waxay ahayd dekadani waxay horta caalami ku tahay ilaahiyan waxa weeyaan intaa badda casi waa meel joogeedu dheeryahay oo maraakiibtii si yar ugu soo xidhan karayso waana adduunyada kale malaa lahayn meel latin america ka mida mooyaane waa meel istaraatiijiga waad aragtay khoorka yaree soo gelaya in lagu ilaaliyo waxaad moodaa meel adigu dee beri horena dad ka shaqeeyeen ilaahiyana dee sidan ahayd waa run waa deeq ilaahay siiyeen berbera waxaa muhiimadu tahay qiimuhu maaha maaha berbera iyo dee guryahan la degan yahay waa maxay ku xeeran tahay berberi weeye dekadba ka sakow iyo airportkan marka laga tago waxay ku xeeran tahay macdanaadka kala duwan ee adduunka ku ah qaliilka waxaa jira 5 macdanood oo adduunka 6 wadan baa leh oo dahabkani ku jiray 5 macdanoodba berbera way yaalaan agaarkeeda maxaa kamid waxa kamid run ahaantii maaha midaynu imika dee halkan orayno taasaa kamid iyo taasaa kamid laakiin iyagoo qoraala dee buuggan imika siday ku yaalaan marka waxaad arki karaysaa 5 wadan iyo 6 wadan ee laga helay waa 6 islaama 6 wadan oo islaama marka berberi maxay ku fadhidaa waxay ku fadhidaa haddii biyo noqoto haddii bad noqoto haddii ay buur noqoto haddii ay banaan noqoto intiiba center bay u tahay waxyaabaha haddii xeebaheennaa soo dhimina dee way u wada yihiin berberi maadaama dekadan leedahay unbay dee xeebahan kala dhaantahay laakiin de waa isku wada mid walba dee intan oo kale unbaa u wada jirtay dekada dhisma ahaanteedii airportkeenii ugu weynaa dee adduunyada dee haamo shidaal meel walba way yaalaan inagu kuwaasu meelona kuwiina berberaa dee ilahay ka dhigay berbera iyo warshadaa sawirka waa buur weeyaan dee sawirka waddanka oo dhan ku wada jiraa waxaan garan waayay dee iyadu waxay ugu dhowdahay xaggii transportationka ama magaranaysaa gaadiidka iyo socdaalkoodii ayay dee xeebtiiba saarantahay dekadii bay saarantahay mooyaane dee waddanka ilaa Ceerigaabo ilaa iyo Boorame dhulka haddaad tagto buuro sibidha waad u tegaysaa anaaba arkay buuro ranjiga buuro sibidha sibidhku intan ma aha anigu waxaan garan waayay waxay dee dadku sibidhka halkan uu eedeynayaan waddanka sheekhda labada tallaabo u jirto dee buur uu ku jiraa buur dhaabiga arkeeda uu ku jiraa Ceerigaabo dusheeda uu ku jiraa sibidhku uu ku jiraa waddanka oo dhan malaa waxaan baan sidoo anigu waxa tan la isugu eriyanayaa dekadii bay dee u dhowdahay waa 2 tallaabo sax xagga dee lacagtii ku bixi lahayd iyo xagga ayay dee laakiin warshadu waa badan yahay marka berbere iyadu waxay center u tahay waxa la wixii nolosha looga baahnaa waxaanay leedahay xeeb ilaahiyana oo dabiici ah oo joogeedu dheer yahay oo adduunyada badda waa ragsiigana waliba qaybteena ah iyo Latin America meel ku taala ayaad moodaa offshore-koodu inuu aad u hooseeyo moogtay waxaana u sii raacay berbera taariikhdan taariikhda waa la isku hayaa horta cilmi wax uu jeclaa cilmi inuu wax jeclaa isku hayna hay'adda jacayl uu dhintay jacaylna wuu dhintay intaa midna dafurmayna sax marka aynu sheekada cilmiga ku koobna waayo doodan ma jeclay bas ma jeclay su'aal baa ka taala tama jacaylku cilmi ku dhacay marka cilmi buu dhiri dee wixii hayay jacayl buu ahaa waana u dhintay taariikh caanana berbera uu ku leeyahay absolutely qof waliba Soomaaliyeed ba imika markuu berbera cilmi buu xasuusanaya meeshaas buu soo booqanaya isku soo sawiraya intaan qofnaba dee adigu meeshaad ku soo fartay ma kuma korin anigu reer berbera ما أدوك واحدة هي برعة. أدوك هي برعة. هي برعة تون برعة. يسمو ساد دقيقة بربرية. لكن أنا هي برعة. أنا بربرية يوم مي. رونا هانتي كمانا كلهم كمانا دقمين ده معلومة واحد كبدلنا ما نشوفين. صح.
laakiin anigu nin reer burca ku dhashay una dhashay baan ahay laakiin dee imika waa tan qabiilka meel la isku geeyo umaleyn ma xataa in cid igu geynayso waayo walaal kubad baan ka soo ciyaaray burco mala intaas adigu haa tamay adigu deegaan han burcana wada degtaa xagana wada degtaa wada hooyaan ma anigu Soomaaliland oo dhan degaay laakiin run ahaantii adigu berbere markaa waxa kale oo ay xeebaha maartay marka la sheegayo dee waa magaalada kaliya xeeb dadku tagaan صح marka cabdigood imanka waa adag ayuu soo arkay magaalada muuqaal ahaan hargey marka taa u fiirsatid in Berbera ma isleedahay dibadhac far badan baa ku yimid isleedahay horumar baa laga gaaray ma isleedahay maxaa kula muuqataa ma waxa dadku shubaan haye mise sida imanka tahay siday tahay wiligeed may noqon way horumar bay gaadhay milaaxada haye markii aan wareysiyada sameynayay waxa wareysiyada aan hadda Berberi sheegay waxa la ii sheegay laba 22 kilomitir oo wada ah marka la isku daro oo laamiga magaalada ay laga dhisay waa magaalada koowaad ee jid laamiga ugu weyn ee laga dhiso marka inuu reality waxyaabahan kale siyaasadda iyo aynu ka baxno sax anigu laakiin wixii aan soo arkay magaalada Burco la yiraahdo waxaan gudbinaynaa war reality niyo dawladaha hoose sanadkan inay qabeen anigu saddexda magaalada runtii ka warramaya waa Burco iyo Berberi Hargeysa wax la taaban karo ayaa laga qabtay waliba Burco waan soo duubay oo telefishinka waa ka sii deynay Burco wax la taaban kara laga qabtay ina 22 kilomitir oo wada abaa la sameeyay halka Hargeysa dhowr iyo 19 la sameeyay labadaba sida ay sheegeen iyo gurun iyo been waxay tahay mishiga laakiin waa sidaan wareysiyada ku soo qaaday marka magaalada Berbera inuu istaagaynaay magaalada Berbera runtii tii shicibka iyo tii dawladda aad bay isu bedeshay oo yani guryaha meesha ka dhisan imka garoomada ka dhisan sida magaranaysa yani waa magaalo waxa noqotay runtii camirantay saas ay u muuqato ay waliba inta waa meel sokay marka dhex gashaabad waxaad arkaysaa guryaha ka dhisan quruxdooda xitaa imka dambe la dhisay sida ay baamishtarku uga socdo magaaladu waa magaalo aan buur iyo dhagax toona lahayn oo deedila calaamideedu qurux badan tahay ha xilliga kuleelku man anigu yeelana bana kuleelka nacab mooyaan waa magaalo runtii imka wad arkaysaa dee wadiga arkay imka xeebta batalaad intay dheeran tahay intani waa inta kaliya dadku tageen kamaradu qabanaysa dee waa imisiya 10 kilomitir oo sidaa u dheeran oo meelaha qaar baad arkaysaa buurtii iyo beachkii iyo badii oo isa saaranba oo aanad ka tagaynin ما شاء الله قروحدا قروحدا ay leedahay yani uma inaan hilownin meel kale bimaana laakiin cabdigoodo ma sooran lahayd inay mataqaanay moor dhirta timirta way xeebaha waxa lagu yaqaanaa dhirta timirta in lagu beero moogtay marka maxaa ahaantii marka magaalada ay soo noqoto karaamadii ay lahaan jirtay timir baad sheegaysaa dahabna waa laga beeri doonaa insha Allah taala laakiin muhiimadu waxay tahay yaa magaalo qurxiya shacabka dadkeeda shacabka ha waxaan aad ula yaabay dad badan oo maanta qabiil ahaan sheegta oo aan aragba Berbera haba sheegtaan laakiin hadda ka shaqeynayaan ma aan aragba ha sax waxa laga yaabaa inuu Hargeysa degan yahay ama uu Burco degan yahay ama uu kan u diidan yahay dhulkiisiiba degan yahay haddana aan blog yari halka uga oolin ama daar yari magaalo horta deegaanka inta qabiil ma aha inta degan ee ku abtirsanaysa qabiilkay doontaa noqotay magaaladaas ayaa magaalada bilic sameeyay oo degta hatta ninka anigu guuraan guur ka dhisto waa inaan adiga waxa ka si qurux badnaanaya ka Burco ilaahay idinkii qabiilku doonaha noqdo ka Berbera deganaa ee Berbera dhista waxaad arkaysaa in Burco iyo Hargeysa wada dhisanayaan dadkii reer Berbera ah oo Afrika caasimada ka dugun bay koonanayaan absolutely laakiin hadii ay dhisi lahayn magaaladan oo markaa magaaladan hadii ay leerku waa fiican yahay inkastoo qaali yahay magaalada ugu qaalisan waayo way kulushahay aad hodeel aan deganaaba aad baa leerkeeda looga cawdaa waxa lagu oranaya habeenkii $15 oo hodeelka ah iyo $15 oo AC ga isticmaalaysa waa qaali bal hada u fiirso waa qaali ha hadda markii magaalada aan kuleelka ahayn hodeelku $15 iyo $10 kuleelihii laakiin de AC ilaa ninkaniba waxa ku socda leerisba leerkiiba marka horeba ma aqaan 0.62 miya something like that adigu marka hore leerku qaali yahay kuleelka awgi leerkiin loo jabiyo Soomaha magaalada importantna tahay taas waa arrin kale oo markaynu bilicdii magaalada ka sheekeynayno siyaasad bay naga noqonaysaa adigu de kulli way fiican tahay de in loo dhiso maamul iyada cheap rate la siiyo maadaama aan ahayn magaalo caasimada hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وأنت السلام يا وأنت فرحتني برنامجك على ودان أديو walaalkay cabdigooda araad jecelahay waa kawsar leedahay kala saalaysa Hargeysa ma sha Allah Berberina waa magaaladeedii ma sha Allah waa magaalo horumartay
ومقالة قروح بدن ومقالة إنك عالم كله طلعنا سبيس كذا نضع عروض رأيه ما شاء الله كلنا نضع إنك أي نقص بيرتد كده عصبي صح تكد عصب لفت كده وحي لا سoo kordhay soo ma hormar أنا كفر أحسن هذا غير ساحل هاي ما شاء الله halka ka wada walaalo waan idin hambalyeynaya cabdigoodna aad baan u salaamaya ishabeera ma kala salaamay cabdigooda waa kala Axmed Gaash ma sha Allah walaal aad baan ku salaamay walaal aad baan ku salaamay aad baan ku salaamay walaal aad baan ku salaamayna waxay ka dhawaajisay badda inta deked imika Dubai World markay timaado hadii marka dhiilkaas uu hirgalo isna kulli faa'iidadiisu la imanaya dhilkaasi uu hirgalo wala kala saxay wuxuu blogan baa u dhiman wallahi ilaa qaybka ilaahay baa hayee waa adigu de wax u soo kordhaya berbera horumar uu adigu soo kordhaya marka ama wala bilic noqoto ama abuurtaanka magaalada noqoto kastoo de kambanigana uu saxay inuu malaha agriculture-ka iyo livestock iyo waxa ka qayb qaadanayo wax siinayo dadkii xitaa centerkii waayo imika hello assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله. ولا أدنى كل سلام إنما نكسر دويننا ما قاعد هلك كسر ليسي. ولا المقعد حمسة عليه على واحد شوك أول شهر. حمسة أول شهر شوك حمسة أدنى كسر دويننا. هذه محمد كلا قيد قادنا نسا. أول واحد كلا قيد قادنا يوم كفر حتى ولا إن هاي كلا قيد قادته. هرمر كاي قادر تبربري ورمهم بليان هي يد كده على لسه كمان. ما شاء الله. marka cabdi goodna waxa oran lahaayeen kaltoonalkii fanaanimadii bay ku biirtay dad la socodigi ka qaban jiray طماطنتاي codka waan garanayaa wala ma laakiin dib baynu kala hadlay xamse ya abo ma santaay ku fiiriyeen marka qabati fanaanidaas waa markaa roodii hadii wax aad soo hormarto barnaamijka Israaca Soomaaliga khasab deeli kuma cafinayo de barnaamijka cidna ma cafiyay ma bayeelan laakiin taas ay wada dambeysay magaalada Berbera markaa imika maalmihii aan joogay waxa dhacay de markii dhiilka la keenay runtii dhulkii iyo jagooyinkii iyo buildingkiiba taariikhba de way ka qiimahoodu korbo kaceen ilaa hada laakiin waxa la yiri shirkaddan imika la wareegtay dekada Berbera waxay ku ballan qaaday inay yaani qayb weyn magaalada Berbera ay dhisayso wallahi kaltuunay taas inaga inooma taalo waxaan u maleynayaa sheeday waxay ay ku ballan qaaday kulli dawlad baa mas'uulka ah dawladda Soomaaliya la xisaabtamaysa sax iyadoo baana de kulli wixii ay kala galeen ku xisaabtamay laakiin wuxuu been inagu sheegaynaa kulli hadii ay timaado oo wax investment ama magaranaysa ay de ciidimaad gashato magaalada inay la imanayso bilic iyo quruxba oo de shaqa bilaabmaysa oo قد بكون شو ملها الو السلام عليكم عليكم السلام أدبن كل سلام يوم كسر دويني ولا مقعدة وحل هذا محمد شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم وحنا نرسل عليه سا وحنا قصوا هذا هول روتردام أدبن كل سر دوينينا وحنا كهل لين دكت بربرة كهل لين مقالة بربرة ولا نكسر دوينينا ريقة وكفري السلام عليكم أنا قهرت وحنا دوني نكن عبد قودنا تشجع عنو هذا الله موقت هاي أنا نمدير بربران صح كودي دقيت BBC لورنجرنا عباي وارس هاي وحنو شيء يعني كان ورر برا هاي مثل لما بربر تاريخ ولا لا علم بودري تي بي بودنتي سمعت قرن هاي جايك وكقاضي هاي مثل لما تاريخ الصومال إنه كان بينك شيء وحران مقطع يا يو مقرر سيء نواحي الساحل دكتور بربرية مقعنو ملاي اللي هاي يا ملاي وحلي لهذا مثلا دكتور بربرة ودكتور تاريخ له ولا يقانو وحويا ننكي صالح الدين لنا أيوب لورنجري محمد والله ما البرنامج كسيف عن ولا ما دقيسين دكد بربر ولا ملاي مقالة بربر ودان أي ملاي وير ولا ورنجري بربر ودان نينكي قوري سودك وحوها صالح الدين أيوب مركز مقالة سيلع محمد سؤال بكو يديا ها البودري مركي ونولاي بربر شوي انت لكن ها أنا يربط كودي هاي ما أنت سؤال عن وحكودي أنا لو نسورسنا واحد تري عبد كذا الوضع هذا له وحنوسلكنا
inankii ay hodan dhashay yaa inankii ay hodan dhashay kuma yaa kuma Ha. Holland degan yaa ninka Holland degan hodan ma taqaana carruurtay dhashay rashiid maxamed shabeelaad ninka leedahay ninka haddaad isku daati waad garan lahayde waan aqaanaa kowda aniga ay tilmaamine raalli hoo haddaba waad mahadsan tahay injineer ay naga qaban ninka dee dhegeysanaya iska nafisi ha aad iyo aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay wallahi bilahi aan horeyna waay aad baad umahadsan tahay ma waxaa jira dad fara badan oo runtii maya walaal dad waxaa jira dee caradu iskaga abuurtay may in Europe waxaan dadka Soomaaliya dee meel kastaba ha joogaan jooga ani ogeyn in dadka qaar loo qoro dee dhakhaatiirtu u qoraan inay u keenaan computerka iyo ilaha socialka bal dadkaaga dhex galo halka kala hadal marka dadku way fara badan yihiin laakiin alxamdulillah haduu isaguna inta tuurtay inta waxan baa inagu faa'iidadeenu tahay inuu seexday caawi yiri cabdi god digadan ka dhigay intaas inaga inoo faa'iidadeenu seexday oo waqti ma xukum waxa digada inaga isagu habi inta haduu ku noqonayo daadii maxaad adigu guudaysaa inaga u soo fariisanaa ayada halkan biiliya midiya ma ka dhex gashay cabdi god xayaabo far badan bad la kulmaysaa xayaabo far badan bad arkaysaa odaygu waa hore duqaadkeedii inaynu yeelano boortan weeyaan inaga halkan u soo fariisanaa saa kala u baa la yiraahdaa isagu bad maanta akhiro daan marfuuc qalam ahayn maanta akhiro ku keenaya ka daadayna صح marka inagu magaaladan malaayo de walaal waxa google ka imika hadii malaayo M A L O A O aad ku qorto malaayo ku soo baxaysa Asian Portal ay ahayd de marka isaguna wuxuu yiri de cilmi modernity buu dhintay marka ilaa imuun noolayna sidoo ku ogaadeen cilmi modernity buu dhintay teeda kale TB da Maxamed in la iibsaday inay ku dhici karto miyaan ogeyn isaga ما تبيد وعذر الله كان marka inaad qof cudur ku caydo miyay وعذر الله كان أنا كره اللي جاينا ده علمنا قبل جاي وقتك تيبه ده محها الحمد لله كقبته هلو السلام عليكم السلام عليكم أبا بكون سلام عدك جاي الفرق جاي قد مجا عاجي شك مجا أبشر بقى أبشر ها أبشر وحنا نجلس على اللسان أنا أصلي يا مجال برعو أبشر وعاد بنفوس والموصول له أبشر ها ولي بعد قدر صلاة الله يعزك الله يدوم خالد عبد السلام الله أبشر معك ورا أنت كان قدر أنا سلام يا الله يعزك وخالد هذه كده ولا هيا كده ويني كهل هاي أرمها دك الدنيا عنده وارد مرانتنا ما يدكت كمان نهلين إنه دكتة كانوا وين بربري خروج هذا نكلين يهر مركي قاعدة وأنا قلت ما عاد قول ها ها وني كعلمتي سوغان تيوها ولفت جيسي وصل لفت جيسي أنا ما قول يا والله اللي وضع بالوضع ما حد قال غير ما وليسا عاوة محنا قلقا قادنا يسعاوة خدك كعلوس خدك ولا تسعى مغلينو خدك علوس سفي عنكم مغلي منه سفي عنكم مغلينو هاد ما وقحونا هياتكم مغلينو كسو علي مرحبا dadkii markay dekada barbaran qoodayeen dhibaatada waxay tahay barbaran dekadii baa ka saarnaa halkan uu fadhiya barbaran oo ku sheekeynaa dadka qaar baa sawir kala qaadanaya marka dani wala wixii nooday ma dib inuu ka jawaabaynaay abdi gooni inuu reer burcay yahay burco ku dhashay ku barbaaray ku koray ku badka ciyaaray xundubtiisi taalo meesha kaliya adduunka ugu jecelahay maanta marka laga reebo Makii Madiina de waa burco warun oo meesha marka qaar baa barbaray ila cararaya de wana iska soo reebaa ilaa raaci kari maayo bila aadan baan ahay وين هذا ولا نجده ومركو هلكا كان توكي مرني انت اسك دفتay ila doorad burcan ku noqon sheekh baan qanu ku dhalanin oo aan ku korin oo ku barbaarin berberi iska daayo oo aybteeda hoose sii degan tahay laakiin aan wali reeb raabana walboogi qolooyinku waa iska wataane miskiin oo berberi marka aan ku rabo waxa jirta marka bilada magaaladu beri waxa jirtay dhirtu horta iyagu waa wax la beeri karo dhirtaha dhismuhuna wax la dhisi karo laakiin maxaa ah in horta berbere loo soo celiyay inay dhisanto
berbera dadkii reer berberaha iyo siday u dhaqnaayeen in la soo celiyaaba qurux badan magaalo waxay ahayd cid waliba degan tahay oo reer berberaawi jiray hargeysa uu jiray boorama uu jiray eragaaba uu jiray yani markay magaalo waliba ku soo noqoto in ehelkeedii deganaan jiray uu yimaado magaalada berbera waxay magaalada ugu qabiilka yar qabyaaladba kama jirin berbera صح عرب iyo Soomaali iyo cid waliba way deganayd waad arkaysaa imika waaniga dee anigu markaan taagnaa dee sawirkaas waa adiga iyo boodari waxa la soo taagay kadib waxaan soo taagay waa meesha boodari ku sameeyay furulahi marka halkaad ka arkaysa albaabkaasi dhulka hoos buu geeyay daacay way degtay muddo dee halkaas ay dee sanaday jirtaa dee daartani hoos way degtay marka albaabka aragtaa waxaad sawiranaysaa cilmiyo fadhiyay iyo bal hadda dadkii galayay iyo ka soo baxayay iyo hadana meesha maris wixii dahablihii reer berbera meesha maraya marka waxaan sawirtayun oo aan galay halkii cilmi fadhiisan jiray misaal halkan uu dee roolida ka iibin jiray ilaa moofadii dambe oo waxaad sawiranaysaa nin jacayl hayo oo dee halkaa fadhiyo oo xilligu kuleyl tahay oo aanay jirin dee AC iyo deedna qushuuc yar baa kusoo yara gelayso haddii aan xitaa sidii berigii ninkii habeenkii nala soo hadlayay waxaanan garanayn baan jecelahay ayaa adiga waqtigaagu iska yara muraaqoonaysaa marka runtii haweenka oo marka marto magaaladu runtii de kalluunna waa lagu cunaa kartuuna absolutely wallahi billah kalluun fresha kalluunkuna wuxuu wataa de cilmigiisu wataa mala kalluunku dadka jacaylka uu ku badiyaa baabtigo ka gudigo adigu kalluun baa yaala waa meel kulul waa la shaqaysanaya waa la ordaya sonkortii wixii waad gubaysaa markaad sonkortii gubto khudradihii dee shamaamka meesha ugu badan uu ka baxaa bartiisa baalkan inuu hana waa biyo guriga aaga iyo berbere moogtay meeshan dadku moodayeen inay guban tahay waxyaabaha ka baxa haddii lagu beeri lahaa maanta kafeega iyo cananaaska iyo dee waxba ka soo baxaya nimco waa nimco hallo assalaamu calaykum hallo assalaamu calaykum wasalaam waan ku soo dhaweynaynaa magacaaga isha aad gelisaa si walaalo walaal waxaan ka soo hadlayaa magaalada la yidhaahdo Shafiil magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Bibi Xasan Bibi ha walaalo Xasan Bibi waan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku salaamayaa waan la socdaa barnaamijkiina marka hore adiga iyo xildhibaanka ku ag fadhiyaba waan salaamayaa abdigood ma xildhibaan bas soo sharaxday waa iska waa eray maamuusa xildhibaan meeyay aad baan ku soo dhaweynaynaa walaalahay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa cabdigood markuu berbera tagay ee uu yiri dadweynaha bal hadda ka sheekeeya berbera cabdigood waa si wanaagsan berbera halka cilmi boodhiriya aad istaagtay ee quruxda badan leh sawirka aan arkay cilmi boodhiriyo jacayl muruga leh halka la fadhiyaba ii muuqda Allah ya isag ma sha Allah waa ka soo isla markaana reer berbera oo dhan maxkamad baan saari lahaa saacada hadda aan kula joogo muxuu ni reer berbera sawirka soo qaadi waayay baad oran lahayd maya waxaa leeyahay reer berbera xuquuqdii jacaylkii cilmi boodhiri meel kaga wada dhacay berbero dhani oo soo qaban kari waayeen intaan soo qabtay gaariyo berbera gabaaxay maanta laga bilaabo Soomaa maanta laga bilaabo reer berbera jacaylka ma yaqaanaana way ku tunteen laakiin reer waxa way yaqaanaa cilmi boodhiri buu ahaa laakiin reer waxa way yaqaanaa reer way ku yara dhadhawyin ma way yaqaanaa dheeraana kale sawirkee marka barnaamijkiina aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan idinku hambalyeynaa sida aad u baraarujinaysaan dhalinyarada iyo wixii jacayl hayaba iyo wixii buqiyo wixii qarsanayaba iyo wixii horumar raba iyo wixii horumar rabana inkastoo berbero horumarkeeda aanu dhisnayn oo dani hargeysa un la dhisto burcaba laga tagay iyo berberaba laga tagay wallahi la dhisay magaaladii berbera wallahi yani ma siday ahayd in loo dhisay mooyaan horta waa la dhisay oo nimankan imika golaha deegaanka iyo ninkan maayarka imika meesha joogaana way dhiseen bimacna kalma markaynu run doonayno wixii siyaasada meel naga dhiga waayo nolosha hadduu meesha ku hadaba la yiraahdo waa siyaasad waa mashaakil laakiin nimankan ka shaqeeya barnaamijkayga imika aan ka baxay waxaan ka sheekeynayay maasadii hooyo waxa sameeyay xogayaha dawladda hoose cabdikariim baa sameeyay waa ragga madaxda magaalada dhisay maayarkeeda golaheeda deegaanka yani run ahaantii waa la dhisay oo loo kacay ninkii hore ee isna haystay
cali xorxor la yiraahdo haystay dekada ilaa masaajidada ilaa kuwa kaliyaha laga baarayo yani in sadaqada aad u fidsan jiray buu isnaaha marka run ahaantii siyaasaddu waa halkeeda laakiin magaalada way dhisantay laakiin waxay u sii baahan tahay waxyaabo ilaa sida magaalooyinka kale waxyaabo fara badan waa runtiisa bb waa runtiisa oo Hargeysa la dhisay laakiin hadii magaalooyinka kale wax la gelinayo insha Allah ana imika hadii maalgashiyadana ay sii bataan berberi waxay noqon doontaa magaalo aad u qurux badan laakiin Cabdi Goodow mid baan anigu aan mataqaanaa ka soo horjeeda magaalo walba xitaa buul yar meel ka dhis hadii ay dhirtu ku badan tahay meeshii oo dhirtii lagu dadaalo oo mataqaanaa dhir fara badan meeshii laga beero buulka yar aad meesha ka taagato uu soo baxaya qurux buu noqonayaa quruxdii adigu quruxdu waxa la socotaa dhirta la socotaa quruxda meesha imika aynu joogno ayay aad eegaysaa dhirta xuquuq leedahay geedku nin ka shaqeeyay leeyahay halka dadkii baan xuquuq lahayn iska daa dhirtiyo marka horta waxba way imanayaan waxa haboon horta hada xitaa naxariista iyo roobka inuu soo daayo aadankii dhirta beeri lahaa baan naxariista ku yartay horta naxariista ha u timaado iyaga hayso wada yimaadaan markaas dhulka iyo dad u naxariisanayaan xoolihii kalena iyagii baan isu naxariisanayeen maxay horta u naxariistaan cid kale Soomaaliya in lagu gawaabiyo loo sheego Hello salaam alaykum عليكم السلام walaalaad baan ku soo dhaweynaya waa inaan weeyaan magacaaga sheeg walaalaha ka digla saalaysid walaala magacaygu waa cibaado waxaan ku koray berbera adduunkana berberaan ugu jecelahay صح cibaado yani xasuus gaar ay leedahay haye soo dhaw wuxuu yiri berberada nin gaadha biyaheeda dhadhamiya jacayl kama badbaadee meelo helay birtiisii woof haye abtigood waa fahmaya baan maleynaya haye waa fahmaya ayuu waa magaalo jacayl magaalada berbera ilaa xad waxaan ku leeyahay 60 jir baan ahay waan ku koray halkaas ku aqliyeystay magaalada xaafadda la yiraahdo maxay ahaayeen kungeed baan ka beeray aniga iyo groupkii iska wax u qabso ma sha Allah 70 waxay heedan 1900 debri hore una iska dhaha 1900 debri hore ila 73 ila kungeed baan halka ka beeray 5 waxaan tagay 9kii ayadoo meeshii aad moodid baan aad baan uga naxay magaaladii berbero laga guuray dadaal la garanayni joogaan waan isnaqaanay ciyaal berbera kulli rooliya caruur marka waxaan kulli dadkii reer berbera soo noqon maayaan waxaan jeclay dalkii qurux marka waxa tahay qoladii ku heesjiday ya daani jamalanda qoladii heesaha هسيدر أدوبي ماكي لحظة سراكور بربرد يمكن لهذين يا أخي سكسلا واحد كل يسقال بقول يبره ها مرة كل يوم لين ما ينسون نقول صح I don't think so مقالة دي بربرة لين ما أنا روح ماضي لكن ده وطن كواتشرة وطن كواتشرة الحمد لله أنتينا مثل كلا وحنا روح ماضي علي حول بتشوفي مركن شوفي مركن تجي أنا عيال لبع عيال ومتي وأود الحيس كيجي بدي حسان قبنا واسوق قلي عاني جيرنا وكسر عبي علي حود iyo gurigiisan ba afarta koona ka qoyana birgreen ku taal aad baan wax xumaaday taana waxaan kala ka xumaaday ciyaal reermii soo galay berbera ku dagaalamayo kule ana berberaawi war xageed ka timaan ku afkeed man ku daarta ninkii lahaa iyo daarta ninkii lahaa ma garanayaan xagee ka garanayaan qaarad kale ka soo wada galeen ma garanayaan والله aad baan uga xumaaday marka waxaan ku dhaw waa ay qabyaalada berbera ku beeray hindi iyo carab walaalaan nahay baan idhi qabiil ma naan lahayn qabiil ma lahayn berbera qabiil ma lahayn absolutely والله guud ahaan ba qabiil ma lahayn waxa ahayd magaalo is wada jecel baa qalad baan u garanaya u kala sheegaya ya naam quality soo noqon maysa laakiin imika waxa la yiraahdaa in nasrigi soo yara noqonayo soo dhismayso insha Allah dhalinyarada imika halkaas waa ku dambeynaya insha Allah halkaas aan jeclay nolosheeda iga hadhay ku dhameeyay ilaahay haynoo fudud inaad u guurto insha Allah ta'ala insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah Cabdi Goodow miyaan ku berberadii hore ma lagu leeyahay berberi sida ahayd ma soo noqonayso miyaan ku laahayn berberi sida ahayd si kasi qurux badan ay noqon kartaa hadii loo dadaalo xaqii dhismaha uma qurux batay laakiin run ahaantii xaqii yuhunta dadku wali way jiiftaa yuhuntii dadku ونري بربرة هو قبيل كم لو تهم أي حين أي الله ورنا يا متي ري بربرة هذه الله دورو تاسنا وما قروح بدنا مركا رون هانتي ويسكسر نقول إنسان لك كل رون هانتي مكان دت كلمة كمان ملكه هي شوبة مجال هانت ويدسان لا ده ويدسان يقول كسب حنتا ما إلهي كان هنا كترتر ولا إلهي قبيل كان هنا كترتر إن شاء الله أو إحنا وضع دمنا إنه بور مالس كتاعم بقول لي أنا على الودقية
lagu dagaalamaya marka waa dhibaato weeyaan khayrka ku badanaya ha dhibaato weeyaan barnaamijka waxaan ku jirnaa guntii iyo gabagabadiisa cabdigoodo maxaad doonaysid dadka halkan inaad ka gudbisid ama aad ummadda heer berbere ee ku daawanaysa hadday noqoto mataqaanaa madaxdooda hadday noqoto mas-uuliyiintooda shicibkooda maxaad kula talin lahayd maanta adaa uga gudbin lahayd message kooban niyow tala ahaan maanta u malayn maayo halkan taladaydu inay ka gaadhaysa wuxuu baan oran lahaa ummadda ina wada daawanayso oo dhan anuu xitaa reer berber soo qaadin ilaahayna ka baqan nabigiina ku salliya qof walbana qul astaghfirullah oo ilaaha gadee magalaysa dambi dhaaf weydiiso uurkiina inay isxaadha intaas ma kula talin lahaa صح انت wax wanaagsan oo jiraan ba cabdigood aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijka ka qayb qaadatay aad u maasantahay iyo casmadan ku weydiisada iga qaabashay aad iyo aad u maasantahay daawadayaal intaas ayuu nagayay barnaamijkeena Higsi maanta waxaan ka hadlaynaa Berbera cabdigood aad baan u mahadcelinaynaa dhinaca farsamada waxay fadhiya cadaaweena aad ugu mahadcelinayo waa ano kaltuuna iyo inta aynu wiiga dambe dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh